Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkeena waxa uu hadli doonaa filim lagu magacaabo Siyan. Waxa uuna soo baxay sanadkii 2013. Filimkani waa filim cilmi baaris dhanka hawada sare ah oo aad iyo aad xiiso u leh. Kani dhab ahaantii aad ayuu ugu yaabadan yahay filimada kale. Dadka taajiriinta ah ee dunida waxa ay ku nool yihiin noloshooda xarun hawada sare ah lagu magacaabo Elysian, meel ka baxsan. Dhanka kale, dadka danyarta ah ayaa nolol xumi ku haysta wasakhowga dhulka iyo xaaladda xun. Qof kasta wuxuu ku haystaa nolol raaxo leh Elysian. Masaakiinta waxay ku jiraan dhibaatooyin aad u daran. Elysium waxa ay lahayd mashiinka daweyn kara cudur kasta. Taas oo kaliya ma ahana waxay sidoo kale dib u kori kartaa qayb kasta oo ka mid ah jirka bini'aadamka. Waxay kaloo joojin kartaa qabowga. Qof kasta oo Elysium jooga ayaa haysta mashiinkan. Hadda waxaynu aragnaa wiil yar oo lagu magacaabo Max. Wuxuu riyo ku arkay inuu saaxiibkiis u qaadi doono Elysium markuu weynaado. Markuu weynaaday wuxuu bilaabay inuu wax xado. Max ayaa lagu soo daayay damiin. Waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo shirkad. Shirkadani waxaa iska lahaa milkiilaha Elysium, kuwaas oo u sameeyay habka iyo robotka Elysium. Maalin maalmaha ka mid ah, Max oo shaqada u socda booliiska ayay is arkeen, kadibna booliiska waa ay garaaceen. Waxa uu aaday isbitaalka si loo daweeyo. Halkani waxa uu la kulmay isla inantii oo hore ula saaxiibi jiray. Gabartu waxa ay ahayd kalkaaliye caafimaad. Max waxa ay siisay koob kafee ah, laakiin way diiday wayna iskaga tagtay. Shaqada dhulka waxaa fulinayay robots. Dadka saboolka ah looma ogola inay galaan Elysium. Haddii qof si qalad ah u soo galo waa la toogtaa. Waxaa dhulka joogay dad badan oo bukaan ah, kuwaas oo rabay inay aadaan Elysium sababtoo ah Elysium wuxuu haystaa mashiinka qofka xanuunsan lagu daweyn karo. Iyagoo isticmaalaya waxay rabeen inay isdaaweeyaan. Kani waa Spider oo la magac baxay markabkiisa hawada sare ugu diri jiray Elysium si qarsoodi ah. Spider wuxuu u diray 3 cirfiid oo ay ka buuxaan dad dhanka Elysium-ka. Markii ay guurayeen, xoghayaha difaaca ayaa dabaysha helay. Waxa uu amar ku bixiyay in la burburiyo maraakiibtaasi oo ay ku buuxaan gantaalo. 3 maraakiibta hawada sare, 2 ka mid ah ayaa ku burburay hawada. Inta soo hartayna waxay degtay Elysium. Dadku waxay ka soo degeen markabkaasi oo waxay galeen guryaha dadka taajiriinta ah. Isla markiiba booliiska robot ayaa yimid oo soo qabtay oo dib ugu celiyay dhulka. Muuqaalka xiga waxaynu ka hadlaynaa John iyo kooxdiisa, kuwaas oo maalin walba u tagi jiray dhulka si ay u xumaamulaan. Galabkii wuxuu ku noqon jiray Elysium. Max wuxuu ka shaqaynayay shirkadiisa. Albaabka qolka shucaaca ayaa la xiraa inta lagu guda jiro shaqada. Maamulaha Max wuxuu weydiisanayaa inuu hubiyo qolka isagoo gudaha u galaya. Max wuxuu si lama filaan ah ugu baahan yahay inuu galo albaabka. Waxaa laga soo xiray gudaha iyada oo la abuurayo habka shucaaca ah. Shucaaca ayaa saameyn xun ku leh Max. Banaanka dadku waxay isku dayaan inay albaabka ka furaan oo ku dhameeyaan inay dibadda u soo saaraan. Robotkii baa sawire oo daawo siiyay wuxuuna u sheegay inuu dhiman doono 5 maalmood gudahooda. Max waxa uu tagay guriga isaga oo murugaysan oo jidka ku sii jira. Waxa uu la kulmay saaxiibkii ayaa u sheegay inuu garanayo nin taga Elysium-ka, waxaana aadi doona Elysium-ka anigoo qaadanaya markabka hawada sare. Maalintii xigtay labadooduba waxay aadeen Spider oo markabkiisa u qaadaya Elysium-ka, laakiin wuu diiday inuu kaxeeyo sababtoo ah Max ayaa cadowtinimo hore ula lahaa ninkani. Ninkaasi wuxuu hagaajiyaa aaladda Max. Max wuxuu dareemayaa fiicnaan sababtoo ah dhanka kale madaxweynaha Elysium-ka John ayaa u yimid dhulka si uu ula socdo shirkadiisa. Hadda waxa uu u kicinayaa Elysium-ka. Max iyo kooxdiisa waxa ay weerareen dayax-gacmeedkiisa waxayna toogteen John. Max isla markiiba wuxuu ka soo dejiyay xogta maskaxdiisa nidaamka neerfaha. Kadib markii uu nuqulka ka sameeyay, waxa uu fahmay in xogtani oo dhan ay tahay mid sir ah. Hadda wakiilka iyo kooxda Max waxay galeen dagaal waxayna dileen saaxiibkii Max. Max waxa uu arkay saaxiibkiis inuu gabar sidoo kale lahaa. Waxay qabtay cudurka kansarka ah. Kaliya mashiinka Elysium-ka ku jira ayaa awood u leh inuu daweeyo. Waxa ay ka codsatay inuu gabadheeda u kaxeeyo Elysium-ka si ay u bogsato. Max ma caawin karo iyada. Kadibna halkaasi ayuu ka soo baxay sababtoo ah wakiilka ayaa ka dambeeyay. Hadda wakiilkani wuxuu yimid guriga saaxiibkiis Max oo wax ka weydiinayo Max. Markii ay u jawaabi weyday, labadooduba wuu afduubay si uu iyaga uga dhex helo Max. Max hadda wuxuu u yimid Spider oo u sheegay dhammaan codsiyadiisa Elysium-ka. Waxa uu maskaxda Max ku xiray kombiyuutarka in haddii xogta dadka oo dhan lagu daro barnaamijka. Kadibna waxaa lagu rakibay Elysium-ka. Marka dadka dhulka ma noqon karaan qayb ka mid ah Elysium-ka. Wuxuu rabay inuu hadda ogaado tan.
marka uu isku dayay inuu tan sameeyo wuxuu gaatay in dayax gacmeedka uu ciriiri galay. Tani hadda waxa ay ahayd wax aanan suurtagal ahayn in la cusboonaysiiyo ama la soo dejiyo barnaamij kasta. Hadda ma awoodi doono inuu caawiyo Max. Hadda wuxuu weydiisanayaa Max inuu baxo. Calaamadahani hoos ayay u dhaceen dhimashadiisa awgeed. Taasi waa sababta barnaamijkani aan loo isticmaalin hadda. Max sina looguma tagin hadda. Markaa wuxuu doortay inuu isdhiibo. Marka wakiilku u yimid inuu dilo, waxa uuna go'aansaday inuu ku qarxin doono bamkan. Wakiilka waa uu qoslay wuuna oggolaaday. Max wuxuu arkay saaxiibkiis iyo gabadheeda oo isla markabka saaran. Hadda Max waxba ma qaban karo sababtoo ah wakiilka wuu xiray isaga. Max iyo wakiilkaasi ayaa ku dagaalamay markabkani. Inta uu dagaalku socday wuu isqarxiyay isaga oo dhaawacay wejiga wakiilka. Markii uu markabka joogsaday, Max saaxiibkii ayaa kaxaystay gabadheeda. Wuxuuna isku dayay inuu isticmaalo mashiinka, laakiin mashiinku ma shaqaynayo maadaama uu kaliya u shaqeeyo dadka Elysium-ka. Waxay u keeneen wakiilkaasi mashiinkaasi oo wejigiisa ayaa soo kabtay oo mashiinka ayaa shaqaynaya. Max iyo wakiilkaasi ayaa mar kale la dagaalamaya. Max ayaa ka soo tuuray saqafka wuuna dhintay. Dhanka kale saaxiibtiis waxay ku guuleysatay inay daweyso gabadheeda. Markab kale ayaa ka yimid Elysium-ka ayaa tagay si uu gargaar caafimaad u siiyo dadka dhulka. Sheekaduna waxay ku dhamaatay halkaasi. Mahadsanid.